بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودرسي لحاج تفسير في جزء عامة أنا مطلق عليه رمضان لو سورة ضد أيام قادم دونا إن شاء الله تعالى سورة الانشقاق هي سورة البروج. سورة الانشقاق waxay ka mid tahay suuradihii aan soo sheegnay xadiidkii hore aynu ku soo sheegnay suuratu al-buruj markaan soo maraynay ida shamsu kuwirat ayaan ku soo sheegnay in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri ruuxii doonaya inuu qiyaamadii indhihiisa ku arko suuradahan akhriyo marka إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، إذا السماء انشقت. سورة عزي مركم التهي قيامة دي مشاهد دي قار كم إذا الصفين أيام التلمامي. مركب وحيكون بالله بنيسا اسبدل لذا كل عيا كون كقيبة كم إذا هي السيدة وحنا قندونا مركب قيامة التماد السيدة سيكون بالله بنيسا dadku siday kala noqon doonaan iyo qaabka loola mucaamaloon doono say u kala duwan tahay ayay ka hadli doontaa iyo meeshay ku kala dambeyn doonaan. waxay akhiiran lagaga hadli doonaa suuraddu ka hadlaysaa oo ilaahay ku dhaaran doonaa makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah ibni aadamka iyo maraaxiisha kala gedisana uu mari doono ilaa ama naar uu ku dhammaado oo isbeddelkaas u socdo xaaladba xaalad say ugu dhiibaysa uu godkaa ku dambeeyo ama dhanka kale siday xaaladba xaal ugu dhiibaysa uu jannada ku dambeeyo. akhiiranna soo celintiiyo nolosha dambe in la taqriiriyo iyo dadka mu'miniinta waxay ilaahay agtiisa ku leeyihiin ayay suuradda lagu gabagabaynaya. wuxuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala marka bismi illaahi araxmaani araxiim إذا قرتي السماء سمدي انشقت أي دلدلاعذو وأي كلا دنبلنتو وأذنت أي مقشو لربها ربي قد أي مقشو أمر كي سيش وحقت لغو حقسيو إن إلهي أمر كي سيشي ولغو تشتسيي ولغو قرسيي ولغو حقسيي. وإذا قرتي الأرض دولكي مدت لتاغو يعني دولكي لفيديو أو لتاغو وفيدين تاغيدا أو ميل هو صلاحين ميل كورونارهين والسمن وألقت أي صوتور توسور ريدو دولكي ما فيها وحي قده هيدا كوشري وتخلت أي اسماريسو وحي قده هيدا كوشري أي اسكماريسو اسكفاروقسو وأذنت أي مقشو دولكينا لربها ربيقيد أي مقشو يوركي سيشو يا أمركيس وحقت لغو تشيتسيو لغو قرسيو أرنكا يساقا انتا سيمركا لعدها لاقى الإنسان كدحه هو إنسان كي مركا وحو لكو المي وحو صوشا قيستي اسبدل هذا دعاية كم انتهي سمدو او دلدل عدا وانصومرني إني سمدو تشلعي دونتو dildilacna ku imaan doono malaa'igtuna ka soo degi doonto ka imaan doonto sidaas way macnaha marka samadii baa dildilacday rabbigeed bay maqashay oo dhageysatay oo Allah amarkiisa qaadatay way macnaha garbayna u leedahay in Ilaahay amarkiisa inay qaadato waa arin lagu garsiiyay arin lagu la yaabo ma aha maxaa yeelay Ilaahay tabaaraka wa tacaala wal qawiyul jabbar wax amarkiisa la diidi karo ma aha wax amarkiisa ay hor istaagi kartana ma aha inay amarkiisa qaadatay oo ay maqashay waa lagu garsiiyay waa lagu jidsiiyay. dhulkiina sidoo kaleeto markii la fidiyo oo la simo oo yani wax weeye muxuu ahay laqa al-insanu kadhahu ibni aadamkii wixii uu adduunka ku soo rafaaday iyo wuxuu ka soo shaqeeyay marka wuu hayaa way. طيب inay jawaabtu sidaa tahayna waxa laga qaadanaya
aayadahan ka dambeeya yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan baa macnaha tilmaamaya. intaa kadib baa bini aadamkii lala hadlo alla wuxuu uhi yaa ayuha alinsaanu insaanow innaka adigu kaadixun ku kadeedan baa tahay, ku shaqo adag ku jiraa tahay. kadxiga waxaa la yidhahdaa waa sacyiga iyo camalka adag waa shaqada adag. innaka adigu kaadixun baa tahay mid kadeedanoo shaqo adag haya ilaa rabbika rabbigaa intaad kala kulmayso, inta aad ka dhimanayso ood aakhare lagaa soo saarayo ood rabbigaa kala kulmayso, kadxigaa iyo rafaadkaa iyo shaqadaa adag baad ku jiraysaa. kadxan kaadixun kadxan yacni kadeednaan ama shaqo. fa mulaaqiihi mid la kulmayaa tahay marka yacni mid shaqo adag iyo rafaad ku jiraa tahay, mid kadeedan baa tahay, mid adduunka intuu joogaayey aan nasnayn baa tahay. ilaa rabbiga aad kala kulanto shaqadaa adag iyo kadxigaasaad ku jiraysaa, markaasaad la kulmaysaa iyo shaqaduu soo shaqaystay buu la kulmayaa abaalkeedii waay, ama wuxuu la kulmayaa rabbigii buu la kulmayaa. oo damiirka fa mulaaqiihi in rabbiga loo celiyo iyo in kadxiga loo celiyo labaduna waa mutalaazimaan siduu ibnu sheegayo ibnu kathiir calayhi raxmatullah. oo hadduu la yidhaahdo rabbigii buu la kulmayna dee wuxuu la kulmay inuu abaal mariyo waay, haddii la yidhaahdo camalkiisii buu la kulmayna waa uun abaalkii waay. waa laba yani wax tafsiiro mutalaazima waay. marka insaanow adduunkan intaad joogtaay dhib iyo kadeed iyo qaxar baad ku jiri waay, shaqo adag waay. adduunkan wax cid ku nasani ma jirto. ilaahayga abuurtay tabaaraka wa tacaala uguma talagelin inay noqoto daar lagu nasto. waa daar ciddii joogtaba ay diyaar u tahay shaqo adag iyo rafaad. cawaaridaas adduunka maraysa iyo ruuxii in uu shaqo ku jira, camal buu ku jira. ayib fa amaa man ruuxii marka waad la kulantay, waa tagtay adduunkii iyo dhibkiisii iyo rafaadkiisi waad dhaaftay. rafaadkaasi adduunka iyo kadeedkaa lagu jiray shaqada adag markii la dhinto ayuu ruuxna ka nasanayaa, ruuxna markuu dhinto ayaa shaqo adag u bilaabanaysaa. saas daraaddeed baa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam dadku markay dhintaan waa mustariix iyo mustaraaxun minhu. midna markuu dhinto dhimashaduuba ku raaxaystaa oo adduunka dhibkii ku hayay iyo rafaadkii adduunyadu kaga nastaa, waa muuminka ruuxa wanaagsan waay. midna waa laga nastaa oo markaasuu isaga rafaad baa u bilaabanayaba, waa markuu qabriga gala geeridaba intaan naftu ka dhicinba markii lagu soo xaadiro ilaa qabriga markaasuba kadeed iyo dhib cusub bilaabaya. taasaa laga warramaya marka. fa amaa man ruuxii uutii la siiyey kitaabahu kitaabkiisa la siiyey waa diiwaankii camalkiisa ku qornaa, biyamiinihi midigtiisa laga siiyey. aakhare markii laysa soo saaro waxaa laysu qaybinayaa dawaawiintii riboodyadii dadka laga soo diyaariyey ay ku qornaayeen oo malaa'igtu soo diyaarisay ayaa laysu qaybinayaa. ayib fa amaa man ruuxii uutiya la siiyey kitaabahu diiwaankii camalkiisa ku qornaa biyamiinihi midigta looga dhiibo midigta laga siiyo, fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud. wayanqalibu wuu gadoomi oo wuu noqon ilaa ahlihi ehelkiisa xaggiisuuna u gadoomi. xisaabtaa fudud marka la xisaabiyo ehelkiisii iyo reerkiisii jannada ayuu xaggooda u gadoomayaa, masruuran xaaluu yahay mid la farax geliyey. calaamadu waxay u tahay marka qiyaamada la yimaado, maxsharka la yimaado, ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo waa ruux liibaanay waaye. marka ruuxaasi xisaabtana lagu adkayn maayo. kadibna markii xisaabtaa fudud la mariyo ehelkiisii iyo gurigiisii iyo jannadii iyo meeshii loo diyaariyay buu marka aadaya isagoo aada u faraxsan. oo wuxuu ku faraxsan yahay baqdin baa jirtay, baqdintii buu ka badbaaday. waa midda labaade wax ilaahay wuxuu siiyey tabaaraka wa tacaala lagu farxana waa la siiyey, marka isagoo faraxsan buu tegay. fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran. halkaa marka waxaa ka muuqata addoommada qaarna xisaab adag baa la marin doonaa, qaarna xisaab fudud baa la marin doonaa. waxaa nebiga sal alla alay wasalam sidaa u fasiray xadiidka caaisha radia allahu tacaala canhuma bukhaari soo saaray. nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ma jiro ruux la xisaabin ilaa waa halaagsamay. marba haddii lagula xisaabtamo xisaab laguu qaato halaagsantay buu nebigu yihi sal alla alay wasalam. markaasaa waxay tihi rasuulka ilaahayow jacalanii allahu fidaaka
furashadaada ilaahay iga dhigee ilaahay soo ka quraanka ku yiri maaha فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أدونا وحاتي روحي لحسابي وأهل أكسمي قرآن كنا وحوليه هدد وحاتي حساب فضل حساب دونه سيوي ترتام سيوي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعرضون كاس حساب ما هي وأنبندك أدونك يعمل كيسي لا صو بندقي كدبنا sidaasi lagu saamaxay oo kadibna jannada aaday way laakiin wuxuu yiri man nuqisha alhisaabu halak man nuqisha alhisaaba halak ruuxiisa xisaabta lagu adkeeyo oo si dhab ah loola xisaabtamo inuu halaagsamayo shaki male laana wax laga bixi kara ma aha hadii si dhab ah lagu la faguro xisaabtaadii oo in yar lagu dul istaago oo xasanaadkaagi wax wanaagaagi iyo xumaantaadii miisaanka la isu saaro oo shay lagu weydiyo loo dul istaago ma badbaadi kartid taaway marka middu nabiga sallallahu alayhi wasallam man nuqisha alhisab udhib laakiin tani way ka duwan tahay tan ardi baa la yiraahdaa adoonku ilaahi tabaaraka wa taala adoonkiisa markuu doonaynin inuu muxuu ahay uu fadeexeeyo ama ku adkeeyo acmaashiisa baa loo soo bandhigayaa isagii baa la soo bandhigay acmaashiisa la soo bandhigay waxa la leeyahay tan ma sameysay tanna ma sameysay tanna ma sameysay tanna ma sameysay acmaashiisa marka la soo bandhigo waxa la leeyahay ka aska jannada marka taa xisaabtan maxay waa bandhig waana xisaabta yasiirka miduu muxuu ahaayay aayadu ka cabirta way fasawfa yuhasabu wala xisaabin doona xisaaban yasiiran oo in laba kaf miisaanka inta xasanaadkiisa iyo aadka la isu miisaamee si fudud umba acmaashiisa inta loo dulmaro oo loo soo bandhigaa kadibna xageebu aadaya marka wayan qalbi marka uu gadoomaya ila ahlihi ahlkiisa xaqiisu ahlkiisa jannada waa xurul ciinti iyo khayrkii wixii loo diyaariyay masruuran xaalu yahay mid la farax galiy soo aad u faraxsan marka tagaya oo uu aadayga hoygiisii iyo ahlkiisii marka aadaya way macna kaasi waa ki xisaabta fudud la saabiyay oo kitaabkiisana midigta laga sii wa amma man ruuxi uutiya la siiyay kitaabahu kitaabkiisa wa diiwaankii amalkiisa ku qornaay waraa dhahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fasawfa yad'u wuxuu yeeran doonaa thuburan halaag iyo khasaare hog iyo ba wayasla wuxuu gali doonaa saciira naar hurays maxay yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fi ahlihi ahlkiisa dhaxdiisa adduunka markuu dadkiisa dhex joogay masruuran mid la farax galiyay buu ahaan jiray adduunku iska farxsanaa oo muxuu ahaayay cabsi aakhiro iyo xisaab muusan qabin innahu isagu dhanna wuxuu maleeyay adduunka markuu joogay wuxuu maleyn jiray allan yaxura inuusan soo noqonaynin balaa arinku saama ah suumooday ma aha ee inna rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaa waa lala socday waana la arkay waa laga warhayay seen loo soo celinaynin marka ma bilaash baa in laga warhayo oo lagu arkayo oo lagu daba socdo oo ma bilaash baa seen loo soo celinaynin waa طيب كان واقيبتي لباد وددكي اهل النار كاها وددكي قالدي منافقينتي وحي لها المالي وي عصادي وي ايغا وحوي marka kitaabkooda la siinayo bidixdana waa laga siin bishimaalihi waa kameelka laga cabiray bidixdana waa looga dhiibi dhabarka gadaashiisana waa laga siinaa bimaana gacanta inta gadaal laga jabiyo oo dhabarka la mariyo ayaa halka diiwaankiisa looga dhiibaya oo akhrisa la leeyahay marka dhabarkiina way tahay bidixdana waa laga siinay طيب وعلامات إن خسارة مركزو على هو يبقى إليه ويرنا يا محو هلاك خسارة ويرنا يا من هليو هادو حتى بقول قرب ريوتهم هلاقي هذا هو يبقى ده ما هلاهي تيبا من اللي هليني بمعنى طيب نار هو ريسو قليا محايا لي أدون كمركو تشوغي عبسي موسن قبن مرق آخر موسن قبن ديار قرو ملهين nin iska faraxsan adduunkiisa ku xasiloon buu ahaa sidaas way macna baynama dadka muuminiintii adduunka markay joogan waa baqayaan ehelkooda markay dhex joogan yani ehelka waxa weey markaad qaraabadaadii iyo dadkaagii ilmaadeerada iyo tolka iyo markaad dhex joogto waa meesha ruuxu aaminka ku noqdo way halka markay joogan muuminiintu ilaahay bay ka baqaan ruuxa kaleetana yani meeshaas waxa weey yani waxa weey muxuu ahay faraxan loo baahnayn iyo kibir iyo
يعني واحد بوغليا معنا وك إلهي المؤمنين تكون شيء إنا كنا في أهلنا مشفقين مركان دتك نجا دح جوجنا وانو باقي شرني كوانينا مركي دتك ودا دح جوجان أي فرح كبير بي فرح سنان شرين صاصي معنا فسوف وأما من روحي أوتي لسي كتابه وراء ظهري دبركي سجداشي سلجسي فسوف يحاسب فسوف يدعو حويا رندونا ثبورا هلاك ويصلى وحونا قلي دونا سعيرا نار تسعيرا نار هريس إنه يسوي كان وحوها أدونك مركو تشوي في أهله كيس دحديس وحوها قرابديسي كيس دحدو مركو تشوي مسرورا كل فرح قليبها ها فرح قليب اسك فرح صنبوهايو آخريو مرق تيدي والبهار كذا أين هينبا إنه يسوي ظن وحو ملي أن لن يحور إنو سنصون نقونينين ها يعني وحوي وادمانينا قبرك عن كل مانينا حساب ما جرتو يسسوعلين ما جرت ساسو رميسنا ما بد إن ليس كذا إيمان دونا وركيز وما جرين يعني شدولك وما جر بلا إسكاو دافع إن لسوعلين إن أرنكم إيه إن ربه ربيجي وحوها كان إن ربه ربيجي كان وحابيسك بصيرا من أركيا محل جوده وأركيا بمعنى وحويان إن لسوعلين يوحاكو تصيا الله تبارك وتعالى أرجع وأركي لا صعشة ولا صعدة علمك وأولي أعماشه سمينا يو يعني وحوي إلى علينا يو ملائكة الله دري وحن لقى قري كل واحد كتو سيسا إن لسوء علين دونه أو يعني وحوي أبال كيس الله مرين دوره وي معنا بلاش ما مرك إله إنه أركيو سوء علم بكتو سوي معنا فلا أقسم وأن دارنا هل كهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا وحاسقا وإمام أحمد وصوصاري النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دحدة إنه كدو حيسن شري اللهم حاسبني حسابا يسيرا وحديث سقام إله حسابي حساب فضود النبي قال كدو حيسن شري سيدا حديث عائشة سقام نعم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم وأن دارنبو ألا يري بالشفق عوويرتان كد أرنيا والليل هبينكي بان ku dhaaran iyo wama wasaqa wuxuu kulmiyay oo hoostiisa galay wal qamari dayhi baan ku dhaaran ida goorti ittasaqa uu dhameystirmo ururo intaasan ku dhaartay buu alay la tarkabunna bini aadamkii waad fuulaysaan tabaqan xaal aan tabaqin oo xaal ka dambeeya xaalada kala dambeeyaad mari doontaan oo fuuli doontaan waa طيب فما لهم محا أسقناذي مرك أو لا يؤمنون حال أين الرومينين فما لهم محا أسقناذي لا يؤمنون حال أين الرومينين أرمهم مركي ساء عدادين آيات ساء عديهم محا الرومين لايهن وإذا قرتي قرئ الأقرياء عليهم كركوذ القرآن كينا لا يسجدون محا أسجود لايهن محا أتكن لايهنو إلهي أعابد لايهن بل إسكبر دافع الذين كوا كفروا كفريي يكذبون ويبينين يعني وحال لو شيء يردن ما أقوله والله ألنا أعلم وحو أكسون يهي أما ميد علمي بدوي أما أعلم وحو يهي بما شيء يوعونا أي قلبك كو قرصنا يا وحي قلبك كو ويلينا يا وقلوب توضا كو قرصنا وكو تشيرنا إلهي وأكسون يهي فبشرهم أقو بشاره بعذاب أقو بشاره أليم أو حنوشية إلا لكنسه استثناء منقطع إلا لكنسه الذين كو آمنوا الرمي وعملوا سمي الصالحات عمليالك وناكسن لهم وحا أسقناذي أجر با أسقناذي غير ممنون وأن لقوينين كل قوين يا أنا هين يعني وحوي من النسقام من قوي طيب الله وحو كدارتي تبارك وتعالى شفقة وحل يدهدا عند أكثر العلماء سلفا وخلفا علماء بدن كود سيقبان وعوويرته يعني وحوي قرحدو مركي دعدو جدودك كم مقدر جهاد أي قرحدو كدعدي جدود كاسة اللي هذا يعني جدود كاسة وحلي الشفق أكثر السلف المفسرين تو سيدا سيقبان حديث نبينا وهو كسارور الشفق إنه جدود كاسية عووير بيسمار دو هذا المعنى طيب مركا وحو إلهي يقول دارنا يا وآيات عجب بدنو وحم وقتو ميشا كم مقدر habeenkii oo soo qaabilay mugdigiisii iyo maalintii oo daba jeedisay sii socota waatiye inuu soo marnay inuu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala habeenkii oo soo qaabilay habeenkii oo daba jeediyay iyo subaxdii soo qaabashay
walleyli idaa cascas wasubxi idaa tanafas baan soo marnay hadda waa tii kale waay maalintii oo sii socotoo baxday iyo habeenkii oo soo socda isdaba maray iyagoo isbedelayay guduudkaasi marka maalintii oo sii tagaysa ka muuqda way macnaha shafaq habeenku markuu kulmiyo walleyli habeenkii wamaa wasaqa wuxuu kulmiyey makhluuqaadkii yani wax weeyaan hoostiisaa la gelaya sidii maro oo kale la huwanaya marka iyagu wixii oo dhan buu kulmiyey oo ururinaya ayib walqamari ida ittasaqana waa dayaxa markuu dhammaystirmo itisaaqu wax weeyaan bimacnaa ijtamaca wastawaa waa markuu ekaado oo dhammaystirmo ilaana waxa weeye inta hore oo dhan dayaxu iftiinkiisu waa yaryahay markuu 15 gaadho marka dhammaystirmaya iftiinkiisu haddana wixii 15 ka dambeeyo dib buu u noqonaya iftiinkiisu haddana waa sii yaraanaya marka uu dhammaystirmo oo ilaahay ku dhaaranaya tabaaraka wa tacaala muqsamu calayhikum muxuu yahay haddaad bini aadamkii tihiin la tarkabunna tabaqan can tabaq waxaad fuuli doontaan xaalado kala dambeeya haddii laga dhigo la tarkabunna bini aadamkii insaankii haddii laga dhigo waayo sidaana waa tafsiir culimo badani ay qabaan ama nebiga sal alla alay wasalam baa laga hadlaya la tarkabanna yani waxa weye nebi maxamedow waad fuuliyo xaalado kala gedisan baad maraysaa yani waxa weye dacwadiisii iyo maraaxiishay martay iyo meelihii iyo dhibkii iyo dowladnimadii iyo awooddii iyo haakada haddii bini aadamka laga dhigana waxa la dhahay la tarkabunna ibni aadamkiyow waxaad fuulaysaan ood maraysaan tabaqan can tabaqin xaalad kale ka dambaysa ibni aadamka laga bilaabo marka la abuurayo waa dhibic mani ah xaalad kaluu maraya waa xinjir waxaan dhihi lahaa waa xinjir cad hilib buu noqonayaa cadkii hilibkaaba haddana waxaa la saarayaa muxuu ahaayey lafihii baa la bixinayaa ibni aadan jiniin oo uurjiif oo dhammaystiran buu noqonayaa naftaa la gelinaya waa xaalad kale isagoo ilmo yaruu soo baxayaa haddana wuu korayaa waa qaan gaadhayaa haddana garhmadoo buu noqonayaa haddana oday buu noqonayaa qabri buu gelayaa waa marxalad waa ka sii gudbayaa wuxuu tegayaa muxuu qiyaamadii buu tegayaa waa ka sii gudbayaa ilaa uu janno galo ama naar galo maraaxil kala gedisan iyo xaalado kala gedisan buu sidaa u marayaa macnaha bini aadamkii ayib mar hadday arrintu saa u caddahay marka maxay u rumayn laayihiin maxay leeyihiin maxaa ku dhacay famaa lahum laa yu'minuuna maxaa u leeyihiin oyna u rumaynaynin maxaa ka hortaagan arrintu way iska caddahay inay marka rumeeyaan oo yeelaan maxaa u diidan markii quraanka lagu akhriyana maxay u sujuudi laayihiin sujuudani bimacnaa wax weeye maxay u tukan laayihiin ayay culimo badan ku fasireen caamatul culamaa siduu sheekh xuseen ibnu taymiya leeyahay bimacnaa wax weeyaan laanna yani wax weeye sujuuda markastoo quraanka oo dhan marka lagu akhriyo sujuud ma keeno laakiin meelaha qaarkood baa sujuud keenta waxaase sugan nebigu sal alla alayhi wasalam intuu akhriyey suuradan salaad cishe intuu ku akhriyey halkan markuu maraya waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun halkaa markuu akhriyay nebigu inuu sujuuday baa sugan sal alla alayhi wasalam saxiix albukhaari ay ku suganta ayib bal aladiina kafaruu bal iska daayay aladiina kafaruu yukadibuuna way beeninayaan inay tukadaan oy rumeeyaan oy aayaadka wax ku qaataan iska badaaye way beeninayaanoo way diidayaan allana wuxuu og yahay waxay quluubta ku qarsanayaan oo u qarsoon ilaahay waa ogsoon yahay waana ka xisaabin doonaa ugu bishaaree cadaab xanuun badan laakiin kuwaasi waxaa yani wax way iyagu dhanka kale marka la fiiriyo waa maaanida quraanka waay almathani quraanku yani dhinacana waxbuu kaa tusi dhanka kalena yani wax way macno kaloo ka soo horjeeda mu'minkii ayuu dhankan ku tusi dhankanna wuxuu ku tusaya gaalkii iyo munaafiqii ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati laakiin dadka iimaankii camalka saalixa laga helay oo intay rumeeyeen haddana ilaahay ateecay oo sharciga ku dhaqmay kuwaas iyagu ajir bay leeyihiin aan go-aynin oon la goynaynin ajir joogto ah waxay la mid tahay miduu ilahay yidhi oo kale cataa'an hayra majduud waa siismo aan la goynaynin lana nusqaamin maayo lana goyn maayo joogto wey nicmadaasay leeyihiin iyagu halkaasee marka suuratu linshiqaaq aynu inoogu soo dhammaatay suuratu lburuuj weeye ta inoogu xigta ayadana waxay ka hadlaysaa arrimaha ay suuradaha hore ka hadleen waxay si gooniya u taabanaysaa qiso cajiibaho dad mu'miniina ooy gaala cadaabeen ooy ciqaabeen oo si adag ay u ciqaabeen iimaankooda iyo caqiidadooda darteedna loo ciqaabay kuwaasay si gooniya uga hadlaysaa alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala wasamaa'i samadii baan ku dhaartay
daati lburuuji burjiyada u saaxiibka ahayd walyowmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay wa shaahidin ku xaadiraan ku dhaartay ku jooga wa mashhuudin iyo ku la xaadiray mid jooga iyo mid la joogaan yaan ku dhaartay intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday asxaabul ukhduudi jeexjeeximadii ama jeexjeexyaalkii kuwii u saaxiibka ahaa kuwaasaa la lacnaday السماء ذات البروج الله تبارك وتعالى دور شيء أو مخلوقات كيسا كمذا أيو كل عرنا يا سورة بالله هذا شيء دارت كأننا وحويان قل ذا أن شيخنا يوم مؤمنين تعذابوا إيمان كودي عقيدة درتت كل عذابي أيا لعنت كل عضي أيو إلهي كل عرنا يا تبارك وتعالى مركز شيء كوبادي الله كل عرت والسماء ذات البروج بروج تاسي لما معنى بوالي هذا ومنازيشة قرحة يضيح وحيليهن ميلا بوصص أو أي مران أو قرحة نمد كوكويسا ضيح نمد كوكويا يعني وحوي ومنازل ميلو إلهي أقول لقلي أو أي بريان مركز السعودان أو وريقيان طيب وريق هذا أي مران بروج بمركز هذا تاوى معنى ابن جرير بالرجحية وحكلته أيضا بروج تلده كرا وحدقها واوين النجوم العظام حدقها واوين السمدة أيا وحل إلى البروج لأن برجك يعني وحلو استعمالها صرت النير مركع حدقها واوين السمدنا ولا إلى هذا وتفسير ماذا ترى هذا سمدة أصاحبك أما حدقها واوين أصاحبك أما بوصصك قرحة يضيحوا أي مران أصاحبك أي دجان تاسان كدارتي واليوم الموعود وشاهد ومشهود لبداسي تفسير كم حال جوده ما أنت الله يبوه هاي محل جوده كان حاضر كائية كلا حاضر يسمى محل جوده تفاسير كلا قد يسمى مفسرين تمرين وحاسئوا في عن ميت كان النبي كفسر صلى الله عليه وسلم بل هو المتعين ما دام النبي كفسري ملك للآدم أي تفسير كان لم يحسن ما معناه النبي كفسر صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة رسول كحول صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة النبي كحول صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود ما ننك الله يبوهي وما ننت قيامة سأصدرات ذو حلينا هي واليوم الموعود لأن أدومضة أيال السيئي يبوهاس بلنقات كاس إن أي جرت مال صوص عتا وقيامة ليلهذو وأبالكود أي هلي دونان مالين كان ليسوا يبوهاي مركوا مالك قيامة واليوم المشهود بنبي صلى الله عليه وسلم مشهود كوحل ليلهذا ويوم عرفة ما ننت عرفة يدنا ويوم مشهودو خلائق آدو فربضان بابنك قيامة شاهدو إيمانية ملائك إلهي با إيمانية الله السماء سكو أسو دقية مشهود كنا ويوم عرفة طيب شاهد كنا وحو النبي كوفا السري وما انت الجمعة والشاهد يوم الجمعة وانا مالمها أسبوع ما انت أوفض بضن واهي ما انت أو قيمة بضن وياه سيدا سمرك النبي كوفا السري صلى الله عليه وسلم تفسير كان النبي أي نمرك مرينا حديث كالترمذي أحمد يا صاري وانا حديث صحيح حوال والسماء السمدي بان كل ارتي ذات البروج برجية أصاحبك أهيد واليوم يمانك بان كل ارتي الموعود لا يبوهي أضومد الله يبوهي وأغمانك قيامة وشاهدين بان كل ارتي كحاضرة وإيمانك الجمعة ومشهود يمل حاضري وإيمانك عرفة سيدا إسكده سيابك لتنوالي هذا انت سان كل ارتي قتل وحل لعنة أصحاب الأخدود هل كان وحي أهيد dad gaala ah oo dad awood lahaa dawlad ahaa ama awood lahaa ayaa dad mu'miniin ah inday soo qabteen oo ay godad dheer u jeexeen oo ay dab ku shideen ay dadkii mu'miniinta ah soo ururiyeen markaasay dabkii ku gureen waxay u gubayaan ay u cadaabayaanna wax kale ma ahee ilaahay baan rumaynay keligii baan rumaysannahay iyo ma ahee yani waxa weeye waxaan aan rumaysannahay iyo caqiidada nadan khaldan nala soo gala taasaa loo cadaabaya
maxaad ilaahay keligii u rumaysaan maxaad keligii yani wax way u caabudaysaan taasaa macnaha cadaabka iyo dhibka loo mariyay dadka mu'miniinta marka Allah wuxuu yiri intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday asxaabul ukhdudi jeexdimaha kuwii u saaxiibka ahaa waa jeexdimihii dhulkii ay jeexjeexeen iyo godadkii ay dabka ku shideen waa asxaabul ukhdudi jeexdimaha asxaabteedii baa la lacnaday annaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday dabka asxaabtiisii naartii daatil waquudi yani waxa weeye huritaanka u saaxiibka ahay ama yani alwuquud hadday noqoto waa hurid laakiin alwaquud haddii la dhaho wawda la kordhigo waxay noqonaysaa bimacnaa wax lagu huriyo u saaxiibka ahay bifatxi alwaaw haddii saawe aayadu alwaquud waa wax lagu huriyo naartii dabkii u saaxiibka ah wax lagu huriyo oo wixii uu ku shidmi lahaayee dabku ku shidmi lahaay oo dhan bay usoo diyaareen hadday qoryad tahay hadday wax kasta tahay naartii u saaxiibka ahayd wey macnaha id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayhaa naarta korkeeda qucuudun kuwa fadhiya ay ahaayeen markay mu'miniintii soo shiriyeen oo isu keeneen oo soo ururiyeen dabkiina ay shideen oo ku gurayeen intay soo fadhiisteen bay daawanayaan kuraasi waxbay ku fadhiyaan halkaasay daawanayaan sida ay muxuu ahay mu'miniinta silaca iyo cadaabka iyo dhibka ay marinayaan iyo cuquubadaasayba daawaaba muxuu ahay waaba damaashaadaya id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayha naarta korkeeda qucuud calayha يعني وحوي كركيدا قعودن كوا فدhiya ay ahaayeen وهم ayagu على ما شيء كركي يفعلون أي سمينيان بالمؤمنين مؤمنين أي كو سمينيان شهود مرقيال بكي مرخاتية كي أما قوب تشوك بكي way fadhiyaan waxay muuminiinta ku sameeyaan markhaati iyo goob joog bay ka yihiin ilaa waxa kala duwan dambiga intaad samayso inaad ka xishootood ka dhuumato iyo waxa kala duwan intay sariigtu ka tagto xishoodka dambigii iyo mujaaharadii adoo dambigii galay haddana inaad banaanka soo dhigatood yaani qosol iyo maad iyo kaba dhigato macna dibka ay muuminiinta u geysanayaan bay haddana intay yimaadeen oo muxuu ahay kuraas iyo soo fadhiisteen bay daawanayaan wama naqamu ma ina qoonsanin minhum mu'miniinta xaqooda maynan kahanin oo mayna muxuu ahay illa an yu'minu inay rumeeyeen mooye billahi alla inay rumeeyeen allahi al-azizi ghalibka ahay adoomadiisa ka adka alhamidi ila mahadiyay sifatul kamalka iska lahaye si walba u mahadsana allah tabaaraka wa taala inay rumeeyeen mooye wax kale lagu ma qoonsanin maxay dambi galeen maxaa lagu qoonsaday maxay ku kahdeen maxay ku dhibsadeen maxay ku muteen cuquubada iyada ilaahay bay rumeeyeen oo ma dambi la isku ciqaaba maya laakiin wax kale looma hayo wixii saxsana oo allah inay rumeeyeen ayaa dambi looga dhigay taa baa loo ciqaabay way wama naqamu gaaladaasi mayna qoonsanin oo mayna kahanin minhum mu'miniinta xaqooda إلا أن يؤمنوا إن الرميان مويه بالله العزيز غالب كها بمعنى الله هاسي أي أدومدي ساء قليان والله عزيز كأ وآن ليسكو تاجي كرين وعدوا مجان قليو آن يعني للدمع كرين وأدومدي سيدو دون كي يلي كرو كعدقوي الله هاوي الله أدومدي ساء قليان مؤمنين الحميد إلا مهدين يو والله ما هذا مضموع يعني لأنه وحي اللي يسكن هذه النعمان يسقى بحيي وانا قلنا يسقى كسفيس الرب تبارك وتعالى مركو حميد الذي الله سو له يسقى كليجي أي أسقنات ملك السماوات بقرطوية والأرض يدولك بقرطوية دولك يا السماوات كبا الله إسكاله بقرطوية يسقى عليه يسقى معمولا وهو اللي على كل شيء كستكركي سنة شهيد مركاتب كيه وكوكا مرخاتيا wax kasto oo dhacayna waa la socdaa allaha samaawaadka iyo dhulalka leh haddana waxay sameynayaan la socdo oo og allahaasay mu'miniintani rumeeyeen isaga inay rumeeyeen baana dambi looga dhigay marka ma dambi baa wahay allah tabaaraka wa taala dhulkii samaawaadka iskale ee awoodaas leh daqiiqad wax kaga qaban kara ilbiriqsi iyagoo dhanba ku halaagi karaya allahaasay adoomadiisa saa u galayaan way macna kuwaasi marka waxa weeye
lacnadii ha ku dhacdo waa kuwa naxariista ilaahay laga fogeeyey cadaabna waa u waajibay meel xun bay ku dambeeyeen way macnaha dadkii mu'miniinta ah ay saa u galeen xaggay jiraan iyagu إن الذين كوا فتنوا ها يجي بقولي للضبط صعداوي كوي دبك جيستي قال لها بقولي للضبط صعدا إن الذين كوا فتنوا عذابي المؤمنين مؤمنين تعذابي المؤمنين رجع مؤمنين تاع والمؤمنات يضمرك رجع يضمر بيسوق شرين ضد مؤمنين تاع العذابي عقابين رجع يضمر بيسوق شرين إن الذين كوا فتنوا عذابي المؤمنين مؤمنين ترجع والمؤمنات كوا ضمرك ثم مركا كدبنا لم يتوبوا أن كسر نقن خلت كي قالين انتي نولايين ونفت كجرت أن دبك كسر نقن فلهم وحا أسقنا ذي كوا عذاب جهنم عذاب كذا إليه ولهم وحا أسقنا ذي عذاب الحريق يعني عذابك وحجبه ما دام أيدتك جبين أيجنا أبالك ذو إن لجبه جهنم إن لجود ذي يكون جبتان أبالك ذو كاوي إن الذين كوا آمنوا الرميدتك دبك اللوجيست المؤمنين تهدبك اللوجو جري أيجوا كوا حالك ذمرك إن الذين كوا آمنوا الرمي أو عملوا سمي الصالحات عمليالك وناس حقي بالرميين كدبنا ويكون رقمين لهم وحائق أسقنا ذي جنات السندوين أو تجري أي سعته من تحتها هوست الأنهار وبياشي أي قلقليان ذلك كاسانا الفوز الليبانتية الكبير أي وينيد أيجوا أدون كان ويبكر يستنبا ولا عذابي ولا جوبي تبع الوجود هذه ويدنتين ويدافين ويكرستين إلهي وحقوق بدلي السندوين ووين وبياشو قلقليان برواقضا سيهلين إلهي با تبارك وتعالى الليبان تاسي مركا أدونيك يدبكيسي ويبكرنا ستنب ومين الدرسانين سيدا سالاليه ضد كان مركا سيدا الله قلي يكون سيدا أو قلي يعني وحويان يعني معدا ييهن معدا ييهن لكن علماء قاربة waxay ku fasiraan inay qoladan yihiin qoliyo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo ku sheegay xadiis ay muslim iyo ahmed iyo soo saareen min xadiis suhayb oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qiso uu ka waramay qisadaas ay qaarkood iyo aayadan ay isku fasireen waxay yiraahdeen dadkan muuminiinta sida u galay waa kuwa uu nabigu xadiis kaga sheekeeyay sallallahu alayhi wasallam xadiiskan marka la soo koobo qisadiisu waxay ahayd nin waxa jiray boqor ah wuxuu lahaan jiray marka nin saaxir ah yani oo wax u sixra ninkii baa duqoobay saaxirka ahaa kadib boqorkii baa wuxuu ku yiri war aniga waad aragtay waan duqoobay waxa sameeyay wiil dhalinyaro fahmo badan oo aqli badan ii keen cilmigan saaxirka aan baro booskayga suu ku galo wiil yar buu keenay ninkii boqorka ahaa wiilkii yaraaba marka ninka saaxirka aadi jiray oo wax ka soo baran jiray jidkii uu hayay ee uu sii socdo soo socday ayuu maalmaha kamid wuxuu kula kulmay wadaad iska duurgal ah oo meel isaga cibaadeysanay ayuu sii maray uu ku leexday marka wadaadkii wuxuu sheegay dhageystay wadaadku waa wadaad ilaahay ku xidhan ilaa kaliya rumaysan wadaadkii warkiisii buu ka helay wiilkii kadib wuxuu sameeyaa wiilku markuu subaxdii darsiga u sii socdo uu sii maraa uu la sii fadhiistaa darsi buu ka qaataa wadaadkan oo duurgalka oo raahibka saaxirkii buu u tagaayo darsigu ka soo qaataa markuu ka yimaadana uu soo maraa oo xaafada u sii socdo uu daahi marka darsigii saaxirku ka daahaya saaxirka marka garaaca wuxuu ku yiraahdaa xagee ku daahday wadaadkii buu u sheegtay wuxuu warniyo waa la garaaca maxaan sameeyaa wuxuu yiri waxaad sameeysaa markaad saaxirka u tagto waxaad ku tiraahdaa gurigii baan ku soo daahayo yani gurigii bay hawliyo wax ka jireen oo xaqan ku soo yara daahay sidaas ku soco suu sidii ugu socday ayuu maalmaha kamida wuxuu ku soo baxay jidkii uu hayay xayawaan aad u weyn oo jidka fadhiya oo dadkii jidkii ay mari la yihiin oo tuban yihiin oo ka baqayaan wiilkii yara dhagax yar buu qaatay wuxuu yiri ilaahu maanta ayaan kala ogaan ma wadaadkaas wuxuu haysto ayaad adigu jeceshahay oo wanaagsan mise saaxirkan wixii saxsan oo jeceshahay maantan kala ogaanay dhagaxii buu qaatay markaasuu yiri ilaahu hadii arinka wadaadka suufiga ee duurgalka arinkiisu haduu fiican yahay ilaahu daabadan ku dil dhagaxii buu tuuray daabadii meeshay ka baxday dadkii jidkay mareen
arrin weyn bay noqotay marka wiilkii yaraa wadaadkiibuu u yimid arrintiibuu u sheegay wuxuu yidhi adeer maanta adigaaba iga khatarsane laakiin waa lagu imtixaani doonaa waa lagu ciqaab waa lagu cadaabi doonaaye waxaad samaysaa markii lagu helo hay soo tusin cidna hay tusin hay sheegin waayahay wuu ka tegey wiilkii yaraa cajab buu noqdayoo wuxuu noqday nin daaweeya cudurrada khatarta ah dadka indhala-aanta ku dhasha dadka baraska qaba cudurrada laga quustay oo dhan inuu daaweeye noqotay nin marka waxaa jiray boqorka dadka la fadhiista ee golihiisa fadhiistee la taliyaashiisa ka mid ah oo la shaqayn jiro indhabeelay baa jira ninkii boqorka ahaa ninkii indhabeelay ayaa wuxuu ka war helay waxaa jira wiil yaroo dhallinyaro ah oo dadka indhabeelay daaweeya wuu soo tagay ninkii hadiyad fara badan qaal xoolo badan buu keenay wiilkii buu u yimid wuxuu niyo xoolaha meesha yaallo dhan adaa iska leh haddaad indhahayga ii soo celiso wuxuu ku yidhi war anugu indhama soo celiyee ilaahay baa indhaha bixiyee haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryo waan kuu ducayn kadibna ilaahay baa indhaha kuu soo celinahay waayahay waa islaamayaa waay haddaaban indhahayga celayo haddaan indhahayga helayo waa rumaynaya waa rumeeyey maalintii dambe isagoo indhihiisii qabo wax arkahaya ayuu boqorkii la soo fadhiistay boqorkii waa yaabay wuxuu yidhi war indhaha yaa kuu soo celiyey rabbigay baa ii soo celiyey ma aniga adiga wadaa buu yidhi ila boqorkan isagaaba rabbi soo haystaba maya wuxuu yidhi adiga iyo anigaba allah baa rabbi noo ah yaa xageed waxa ka keentay kadib ha la qabtuu yidhi waa la qabtay waa la ciqaabay xageed ka keentay baa wax ila boqorkan isagaa dadkan uu haystaba isagaa ilaahba u ah isagaaba rabbi u ahba rabbi kalaba ma rumaysan waa la soo qabtay waxa la yidhi xageed ka keentay markii la ciqaabay oo la dhibay buu wiilkii yaraa wiilkan uu yidhi wiilkii baa la soo qabtay wiilkii baa la ciqaabay waxa la yidhi xageed ka keentay wax markuu adkaysan waayey wadaadkii suufigaa buu yidhi kan ruwaahibkii juur ku jira kanaa i baray wax wadaadkii baa la soo qabtay isaga lagama hadlinine halkaas madaxa dhexdiisa inta laga saaray miinshaar baa isaga dhan laba qaybood loo kala gooyey kii la taliyaha boqorka ahaana isagana inta la soo qaabtaa la yidhi halkaa inta laga saaraa isagana laba loo kala gooyey wiilkii baa soo hadhay wiilka marka rajaa laga qabaa cilmigii sixirka ee boqorku u baahnaa isagaa xambaarsan in durba laga takhaluso markaba lama rabo laakiin in loo caga jugleeyo oo uu waxan ka soo noqdaa la rabaa shaqadana hayo wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu u dhiibay ciidan buu u dhiibay wuxuu yidhi qaada oo kaxeeya buur saara buurta heblo korkeeda markaad saarantihiin waxaad tidhaahdaa war ka noqo hadduu ka noqdo ii soo celiya hadduu ka noqon waayana buurta ka tuura buurta korkeedii markuu saaran yahay oy meeshii saareen ayuu wuxuu yidhi allahuma kfiniihim bimaa shiita ilaah waxaa doonta igaga kaafi buurtii baa gilgilatay iyagii baa ka daatay isagaa ku saaray markay daateen buu muusan cararine intuu soo noqday buu isagoo socdo boqorkii usoo galay war aaway dadkan kuu sii dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buui haddana qolo kaluu dhiibay wuxuu yidhi doontan qaata badda dhexdeeda la mara markaad badweynta dhexdeeda joogtaan war ka noqo dhah hadduu ka noqon waayo tuura badweynta dhexdeeda ku tuura way kaxeeyeen meeshii bay geeyeen badda dhexdeeda markay joogaan badweynta ayay dhaheen war ka laabo ma laabanayo yidhi inay qabtaan bay isku dayeen oo tuuraanoo ilaahu iga kaafi buuri ayagii baa doontii ka daatay doontii buu la soo noqday haddana ma fakaninoo ma cararine boqorkiibu isagoo socda u soo galay war aaway dadkan kuu soo dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buuri boqorku marka muxuu samaynaa wuxuu ku yidhi war dhegayso boqorow haddaad rabto inaad i disho ima dili kartid buu yidhi aniga waxaan samee ku dhaho inaad samaysa mooye maxaan sameeyaa siin kuu dilaa waay waxaad samaysaa leeb soo qaada leebabkayga ka mida qaansadii leebka isa saar dadkana soo shiri magaalada dhan isu keen meel bannaan oo dad dhan wada joogaan leebkii qaansada intaad isa saarto waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam wiilkan rabbigii abuurtay magaciisaan ku ganayaadhe kadibna intaad i daldasho ood i xidhxidho leebka igu gan saan baad igu dili kartaa dadkao dhanna isu keen boqorkii sidii buu yaalay dadkiibuu soo shiriyey wiilkii baa la daldalay oo meel lagu xidhay dadkii o dhan wada daawanaya leebkii iyo qaansadii buu isa saaray bismi illaahi rabbi alghulaam wiilkan yarkaa rabbigii magaciisaan ku ganaya halkaasay kaga dhacday wiilkii leebkii wiilkii waa dhintay dadkii meesha joogay
kulligood waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi alghulaam wiilkaa yarka rabbigii baan wada rumaynay boqorkii marka balaaya u soo hoyatay wuxuu ka yaabayay baa dhacay dadkii rumeeye muxuu sameynaa marka ciidamadiisii buu diro wuxuu yidhi intaad godad waaweyn qodaan oo jidadka dhinacyahooda ah dadka saf soo geliya ruux walba war ka noqona hadduu ku noqon waayo dabka ku tuura dadku dad ahlul iimaan oo ilaahay iimaan ku sugay bay ahaayeene dabkii bay isku daateen way galeen ilaa markii ugu dambeysay islaan ilmo yar xambaarsan baa soo istaagtay way baqday markay dabkii soo istaagtay korkiisa naftaa siin weyday markaasay istaagtay ilmihii dhabarkeeda ay ku wada Allah wuxuu ku hooyay habaqin xaq baad ku sugan tahay habaqin dabkii bay isku tuurtay marka culimada qaar ba waxay leeyihiin xadiiskaasi nabigu saa uga waramay ayay aayadan ama suuradan dadkay ka waramayso iyo muuminiinta dabka lagu guray waa qolada culimada qaar baa dhahay laakiin xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam si madax banaan buu nabigu u sheegay qisadan suurada ku timidna si madax banaan laakiin way noqon kartaa in iyaga laga wado kadib Allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala inna batsha rabbika rabbiga qabashadiisu markuu adoomada qabanayo la shadiidun waa mid adag ilaahay adoomada waa u kaadiya la yumli lidhalim laakiin markuu qabto kama fakado innahu isagu huwa isagu yubdi isaga wax bilaaba makhluuqaadka isaga bilaabo abuura marka hore wayuciidu isagaana wax soo celiya isagaana dib u soo celiyo dib u soo nooleeya wa huwa isagu al-ghafuur waa midka dhaafida badan oo adoomadiisa khaladaadkooda iyo dunuubtooda u dhaafid badan al-waduudu oo hadana adoomadiisa jecel sidaasi siday u badeen culimadu waxay leeyihiin al-waduudu bimaana al-muhibb waa midka adoomadiisa jecel ama al-waduudu waa midka la jecel yahay oo adoomadiisa iyo awliyadiisu jecel yihiin way macna tayib dul arshi way midka arshiga u saaxiibka ah al-majiid way ka karaamada iyo sharaf kale Allah tabaaraka wa taala sharaf iyo karaamu leeyahay majiidka macnaha kaasa la yiraahdo arshiguna waxa way waa makhluuqaadka ilaahay midka ugu sareeyo way todobada sama marka la dhaafo arshigu waa saanqaafka adduunka dhan ka koreeyo waa allana arshigaas uu ka sii sareeyaa makhluuqaadkana waxa ugu weyn arshiga ugu weyn marka dul arshi way alla mid arshiga u saaxiibka arshi al-majiid way marka la godo waa sifo ilaahay baa laga dhigaya marka Allah tabaaraka wa taala waa mid kariim ah oo deeq badan oo sharaf badan way facaalun way alla midka samayn badan lima shayga yuriidu oo doonayo wuxuu doonayana alla waa mid samayn badan bimaana makhluuqaadka kale ma makhluuqaadku waxay doonayaan wax kamida ma samayn karaan laakiin wax kasto uu doono alla wuu samayn tabaaraka wa taala laana kun umbuli ahaw sidaas unbuu ku ahaanaya facaalun waa mid samayn badan lima yuriidu waxa uu doonayo hal ataaka makuu yimid xadiithul junuudi ciidamada warkoodii makuu yimid fircawn warkiisii makuu yimid iyo wathamuud reer thamuud yani ummadihii hore warkooda ma haysa sheekadii ciidamada iyo isbahaysatada ma ku soo gaadhay fircawn warkiisii ma ku soo gaadhay reer thamuud ma ku soo gaadheen reer thamuud waa qoladii nabi saalax loo diray ma yani see loo galay waay bal iskaba dhaaf alladina kuwa kafaruu gaaloobay waa kuwa nabi maxamed la joogay sallallahu alayhi wasallam fi takdhiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihiin ayagoo ummadii hore wixii la mariyay og yihiin bay hadana beenin ku sugan yihiin ay xaq beeninayaan wallahu allana min waraa'ihim gadaashooda muhiitun mid koobay waay mid ka soo koobay xagga dambu ka koobay maxaa laga wadaa Allah tabaaraka wa taala lagama fakan karo gadaashaadan ka koobay dhinacyaha dhan buu ka koobay saas daraadeed xeelad iyo xoog midna kagama fakan karaan saasa laga wada wallahu min waraa'ihim muhiit bal iskaba dhaafe huwa isagu waa quraanka huwa isagu qur'aan way majiidun oo sharaf leh sida ilaahay uu sharaf u leeyahay ayaa hadalkiisuna sharaf u leeyahay waa qur'aan kariimka majiidun mid sharaf leh way fi lawhin lawh dhexdii buu ku sugan yahay mahfuudin oo la xifdiyay lawhul mahfuudka waa yani wax way waa diiwaanka ilaahay uu ku qoray wax walba quraanku halkaas uu ku qoran yahay waxa laga xifdiyay lawxaasi wuxuu laga xifdiyay wax kasta in wax laga bedelo wax laga dhimo shayaadiintu gaadho wax ka ag dhawaan kara ma jiro lawhul mahfuudkaas uu quraanku ku yaala asalkiisu halkaas weeye isagaasa laga keenay malakul jibriil baa loo soo dhiibay nabi maxamed buu ku soo dajiyay 23 sano ayaa nabiga qayb loogu soo dajinay laakiin quraanku wuxuu ku yaala halkaas uu ku yaala meesha sharafta badan ee dhowrsoon
ayuu qur-aanku yaallaa waana qur-aan sidiisaba sharaf badan wax la beeniye maaha wax la diidana maaha waa wixii la barakaysan lahaa la qaadan lahaa waay hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا خير الجزاء. waxaan soo jeedinayay sheekh Sheekh Abdul Umar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir iyo xasanaad iyo soo kordhin ka siiyo sida dhaqanka ayada mar walba sheekha oo qaaday kursigiisa waxaan ku xijinaa wixii su'aalo ah ee aad noo soo qorteen kuna soo hagaajiseen page-ka masjidka sigiska ciwaankiisana uu yahay masjidka sigiska Islii Nairobi. su-aasha koobaad haddii aan sheekh ku bilaabo waxay leedahay dembiyada ramadaanka la galo miyay ka dembi weyn yihiin dembiyada la galo bilaha kale? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaa ku sugan nusuusta zamanka iyo meeshu markastoy fadli badan tahay dembiga la galana waa ka weyn yahay dembiyada meel kale lagu galo ama xilli kale la galo مثلا dembiga aad maka ku gasho oo beledul xaraam ah wuu ka weyn yahay dembiga aad meel kale ku gashay xilliyada iyo azminada barakaysan ee khayraadka badan dembiga la galo waa ka weyn yahay xilliyada kale dembiyada la galo sidaasi yani waxa weeye nusuus tilmaamaysaa jirta culimaduna sharax badan iyo faahfaahin badan bay ka bixiyeen laakiin fil jumla duuduub ahaan sidaas weeye xilliga khayrkiisu badan yahay dembiga la galana waa ka culus yahay meesha khayrkeedu badan yahay dembiga lagu galana waa ka culus yahay meelaha kale wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashaan maalin horaan sheekha weydiinay laakiin xagga farsamada awgeed waxaa la maqli waayey jawaabta sheekha iyaday baan ku soo celinay. sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan wadanay markab xoolo noo saarnaayeen xoolihii ayaa naga dhammaaday waxaan is aragnay markab kale oo ay leeyihiin qolo aan muslim ahayn waxayna nagu yiraahdeen xoolaha dhintay ee aad idinka aad wadataan nooga badasha kalluunka aan wadanno marka sidii baan yeelnay shariicada maxay ka qabtaa? taa macnaheedu wax weeyaan baktigii aad wadateen ayaad kalluun ku gadateen baktina lama intifaacsado lama gato nabigeennu sal alla alay wasalam waxyaalaha uu xaaraamaya waxaa ka mida meytida lacagteeda baktiga lacagtiisa nebigu waa xarimay sal alla alay wasalam sida xadiidka jaabir tilmaamayo marka ama lacag kaa soo gashay ha noqoto ama shay kaloo xalaalood baktigii ku bedelatay ha noqotee shaygaa aad ku bedelatay waa xaaraan waxaa la samaynayaa waaye dadkii baktiga qaatay tage dadkana malay bay soo qaateen kula soo wareegeen malaygiisee la yeelayaa ama haddii la gaday lacagtiisee la yeelayaa waxyaalaha noocaas oo kale ah waxaa lagu bixinayaa masaalixda caamka danaha guud baa lagu bixinayaa muslimiintu intifaacsanayaan waxbarashada caafimaadka biyaha wadooyinka meelahaasaa lagu bixinaya xoolaha noocaas oo kale ayagu inay intifacsadaanna waa khalad laanna yani qaab khaldan buu ku soo galay oo shareecada khilaafsan wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. gabar baa su-aashan soo qortay sheekh waxay leedahay ninkayga ayaan isku dhacnay kadib waxaan ku dhaartay inuu iga yahay aabbahay oo kale haddana dib baan ka heshiinay marka ma waxaan soomayaa 2 bilood oo isku xigta oo kafaaro gudkii ah? masaladaasi waxay u eg tahay masalada dihaarka suuratu almujaadila ilaahi tabaaraka watacaala mujaadala kaga warramay oo ninku inuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyadayoo kale aad igala mid tahay ama hooyadai dhabarkeedoo kale aad iga tahay asal ahaanna xukumkaas kafaara ka laasimta hadduu intuu sidaas yidhaahdo ninku markaaba uu furi waayo uma yacuuduuna limaa qaaluu oo uu hadalkiisii ku noqdo yani wixii uu lahaa uu ka noqdo oo furitaan raacin waayo wey macnaha markaasi kafaara ku laasimaysa qoor xoraynteed 2 bilood soonkood hadduu kari waayo 60 miskiin quudintood
xukumka dihaarka waa la yaqaanaa laakiin xukumka dihaarka qur-aanku wuxuu sheegay ragga jaahiliyadiina furitaan bay u yaqaaneen islaamkuna xukum khaas u siiyey oo dihaar baa laga dhigay kafaaro leh xukumkaasi marka ma raggaa iska leh mise dumarku waa la wadaagaan oo hadday haweenaydu ninkeedu ku tidhaahdo aabbahay oo kale ad iga tahay ma dihaar baa mise ma aha waa masle khilaafiya fuqahadu qaar waxay leeyihin waa dihaar oo kale iyadana kafaaradii baa ku waajibaysa qaarna waxay leeyihin war ma ahee dihaar waxaa sameeyeen ciddii wax furi karta qur-aankuna rag uun inay samayn karaan iyo ninku inuu samayn karuu sheega mooyaane dumar wax dihaaraya qur-aanku ma sheegin sidaas daraaddeed dumarku wax ma dihaaraan hadday tidhaahdo ninkeeda aabbahay oo kale ad iga tahay waana sida xoogga badan waaye aabbahay oo kale ad iga tahay hadday tidhaahdo yacni ma noqonayso kafaaradii dihaarka laguma yeelanayo laakiin mar kale waxaa laga doodayaa dhaar oo kale miyay tahay oo kafaaradii dhaarta miyaa ku waajibaysa mise waxba laguma lahaabo ixtiyaatan marka dadaal ahaan kafaaradii dhaarta maadaama taxriimku dhaarta uu yani wax wey la macno noqdo inay kafaaradii dhaarta iska bixiso oo 10 miskiin ay quudiso haddayna haysaninna inay 3 beri soonto sidaasi oo dhaar ahaan marka laga soo qaado mooyaane dihaar ragga iskale cala saxiix wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waan ku salaamay salaan kadib waxaanan soomin sanado badan aniga oo caafimaad qaba haddana waxaa igu dhacay xanuunka dhiigkarka ah sinaba uma soomi karo mana soo qallayn karo ee maxaa igu waajibay haddaad soonka intaad kari kartay kas uga tagtay haddana xanuun kugu dhacay ilaahay u toobadkeen haddaad soomi kartana soo qallee baa lagu dhihi lahaa haddii aadan qallay karayninna ilaahay u toobadkeen dambi dhaaf weydiiso oo cibaadaadka kaleed kari karta badso culimmada qaar dhahayana waa jiraan fidyo iyo raashiin ha la bixiyo oo soomankii uu ka tegey ha ka bixiyo laakiin soon kas looga tegey fidyo shareecadu uguma sheegin yacni waxa weeye soonka fidyada laga bixiyo waa soon cudurdaar looga tegey sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa cibaadaadka kale badso inta uun aada nooshahay ilaahayna toobad dhaba ulimo toobadkeen wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaa ii dhow masjid dhanka dambe kaga yaala qabuuro ma bannaan tahay inaan ku tukado masjidkaas masi jirtaa masaafo lagu qiyaasan karo masjidka iyo qubuuraha oo haddii intaa u jiraan aanan lagu tukan karin haddii inta aysan u jirsanin macnaha lagu tukan karo masaafo sida axaadiista nebiga ku sugan sal alla alay wasalam ee bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ku sugan qubuuraha meel lagu tukado lagama dhigi karo qubuuraha iyo masaajidana laysuma geyn karo arrintaa nebigu waa diiday sal alla alay wasalam alimaam axmed iyo aimo badanna waxay leeyihiin haddii masjid iyo qubuur laysu geeyo hadduu masjidku horeeyeyna masjidkaa xaq leh qabrigan dambe ee dib laga geliyo waa la saari qubuurta muslimiinta lagu darayaa hadduu qabrigu horeeyo masjidka dib laga dhisayna masjidkaa la duminayaa laakiin masjid iyo qabri isku dhex jira ama isku dhex yaalla way khilaafsan tahay hadyigii iyo diintii nebi maxamed laga soo gaadhay sal alla alay wasalam aad bay u khilaafsan tahay saxna ma aha hadday dhacday inay qubuurtu gadaal ka jiraan waa in derbi loo dhexaysiiyo waa in la kala jaro qubuurta iyo masaajidka hadday qubuurta masaajidka ka horeysana waa in la kala jaro oo derbi loo dhexaysiiyo ama wadiya meel la maro loo dhexaysiiyo laakiin masjid iyo qubuur isku dhex taalla nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh in lagu tukadana ma aha haddii laga maarmi waayo masaajidkana qubuurtu hadday dambaysay qubuurta ha la saaro wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa maraykanka waxaan ku weydiinayaa sheekhow marka aad rabto inaad bangi aad furato akownkiisa waxay shardi kaaga dhigayaan inaad dhigato $25 bil kastana wuxuu kaa qaadanayaa $10 ee lacagta xukunkeedu muxuu noqonayaa masaladaasi waa mucaamalo meel aanan joogin ka dhacaysa macluumaad siyaadayna u baahan tahay maraykanka aad joogto culimada joogta weydii iyagaasaa garan karaya mucaamaladan aad ka hadlayso fahmi kara
kadibna wixii shareecada waafaqsan kaa dhihi kara insha allahu tacaala wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan sheekha weydiinayaa, waxaan ku jiray hagbad ama ayuuto taas oo socotay 18 bilood. marka 18 bilood kadib ayaan qaatay ayada oo sako goys ah. marka lacagtaas sako miyaa lagu leeyahay intaas socotay? 18 bilood kadib haddaad qaadatay طبعا 18 bilood ee hagbadda la bixinayay dadka kaa horeeyay oo dhan lacag baa kaala jirtay, adaa wax bixinayay, waqtigaagii baa soo gaadhay, waxa kuu soo noqday inta badan waa lacagihii aad bixisay. haddaad ruuxii ugu dambeeyey tahayna kulli lacagta kuu soo noqotay waa uun lacagtaadii oo dadkan kuugu ururtay ood ku lahayd unbaa kuu soo noqotay. ruuxa koobaad iyo ka labaad iyo ka dhexdaabaa deymo qaata, deyn bay ku noqotaa, laakiin ruuxa ugu dambeeya lacagihii ka baxay muddadaas oo ururay unbaa usoo noqonaya. lacagahaasi kaa maqnaa hadday saka gaadheen sanadna u soo wareegay, qaar ka mid oo kaa maqnaa deyn kaa maqan bay ahayd, deynta kaa maqan hadday saka gaadhay sanadna u soo wareegay, saka waa lagu leeyahay. lacagtaa kaa maqnaydee dadka aad siinaysay haddayna sanad ka soo wareegin ama ayna sakadii nisaabkeedii qadarkeedii gaadhinna saka laguma lahaa. waxaa dhici karta qaar ka mid ah in saka lagu yeesho, qaar ka midana aan lagu yeelin. waxay ku xidhan tahay muddadii in la fiiriyo, lacagtu sakadii ma gaadhayna la fiiriyo, halkaasaa waxaa ka soo baxaysa saka ma lagu yeelanayo mise lagu yeelan maayo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasha ugu dambaysa barnaamijkeenan maanta waxay leedahay, sheekh markaan timir ku afuray kadib ayaan sigaar ka daba cabay, marka ajirkii soonka wax maiga dhimaya? soonkii waad afurtay, mar haddaad afurtayna soonkaagii waa dhammaaday. sigaarkan iyo waxaan dambeed ku cunaysana waa uun xaaraan aad muxuu ahaaye aada quudanaysa weye, inaad iska daysana kuu fiican. laakiin soonku wuu xidhmay oo wuxuu ku xidhmay maalintii qoraxdii baa dhacday, khalaas waad afurtay, soonkaagii halkaasuu ku xidhaya, maalintaa waa dhammaatay. laakiin mid baa meesha ku jirta, midda meesha ku jirta waxay tahay cibaadaadka addoommadu ay samaynayaan waa inay ruuxa saamayso weye, waa inay xumaanta ka celiso. sida ilaahay soonka laftiisa markuu ka hadlayey yani waxa weye kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. soonku waa inuu alla ka cabsi ku geliyo, waa in balwadaadiiyo xumaantii waxaad lahaan jirtay uu kaa jaro. hadduu kaa jari waayo soonkaaga waxbaa si ka ah. salaaddii oo kale ilaah waa ka sheegay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar. salaadu dadka xumaanta iyo dembiyada foosha xun bay ka celisaa. hadday salaadaadu kaa celin weydo salaadaada waxbaa si ka ah. dhanka markaan ka fiirino xajkaoo kale markuu ilahay ka hadlay sidoo kale inuu dadka taqwo iyo alla ka cabsi geliyo. cibaadaadku marka sidaas waaye. haddii aad cibaadaysanayso dhanka kalena xumaantii aad qasanayso, sigaar cabayso, qaad cunayso, xaaraantii waxba ina muxuu aad wixii iska qasanayso, meesha waxaa ka soo baxaya cibaadadaadii way ku xakamayn lahayd haddii aad u samayn lahayd sidii la rabay. laakiin waxba cibaadadaada ka khaldan, saas daraaddeed bay wax kaaga qaban laadahay oo ay kuu xakamayn laadahay. dhanka marka laga fiiriyo waxaad u baahan tahay inaad dib ugu noqoto cibaadadaada ama soon ama salaad. ama soonkii maalinka aad soontay asagu sidiisu u dhammaaday, xaaraanta aad habeenkii gelayso soonkii maalintii dhammaaday xagga asaxidiisa waxa ma yeelay. soonku uu asaxay waa xidhmay, waa cibaado xidhantay. dunuubtan aad gelaysana way ka madax bannaan tahay. wallahu aclam. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.